بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركلي اسمع عبد السلام جنال كان قد داونيسانا واسمع عبد السلام جنال. maanta maxaa idin wadaa waaye maanta waxaa idin wadaa canjeelo yar oo simbal ah. qof aan canjeelo garanayn malahan ee dadku waxay ku kala duwan yihiin qaabka maaragtaa waxa lagu daro iyo qaabka loo qasto. marka aniga qaabkaana u qastaa ilaa arka quraac yar waxa waaye carruurta yarka u diyaariyay laba ilmood yar oo waxbarasho u socda. marka waa iska simbal ma fahanteen. marka aan isla aragno waxaan ku daray iyo waxaan ka hagaajiyay iyo waxaan ka sameeyay. marka soo dhawaada asxaabteyda, haddaa nagu cusub tahay soo dhawow, subscribe noo saar, meesha guduudan taabo, gambaleelka furo sidii wixii cusub ah kugu soo dhacaan. haddaa nala joogtayna like noo saar. marka asxaabteyda qaaliga soo dhawaada. maanta waxaan ka hagaajinay canjeeladeenan. waxaan ka hagaajinay waa burkan iyo xabada ukunta ah iyo labada caag waxaa ku jira iyo micnihi waa leebato ama fixiso iyo cusbo yar ma fahanteen. koobkan waxaa noogu jira raashinkan isku dardarka oo la dhaho mishaarida laga hagaajiyo haddii aan lahayd galley qamadi waxyaalahaas camal oo aan aniga usoo hagaagsaday canjeelada carruurta aan ku siiyo aan ugu qasto. waayo koobkaas baaquligan waxaa noogu jira waa xulbada idiin sheegaaye. canjeeladeen xulbad bay leedahay. xulbadu ma ka ureyso ma qaraar ma lahan maasha allah taasaan u samaysatid. blenderkana ani canjeelada ku qasaaya gacanta mal ku qasaayay. baaquligan waxaa ku jira biyo yaro qandaca ku jira. waxaan kusoo darayaa caagadan waaye fixiso waaye fixiso yar oo aan badnayn baa kusoo daraya qaadada ma buuxinaayi. marka maasha allah isla socono walaaleyga qaaliga. waxaan rajeynayaa inaa maaragtaa fiidiyogan ka faa'iideysan doontaan oo maaragtaa uu anfaco. waxaan kaloo kusoo darayaa hal qaado sokor ah. hal qaado sokor aan kusoo darayaa canjeelada si u guduudato. canjeeladan waa express in yar oo sokor hadana raaciya u malaynayaa waa sokor jecelahay midhaa. waxaan kaloo kusoo darayaa cusbo yar oo maasha allah aan badnayn. waxaan kaloo kusoo darayaa kaamiradan ii shidantaha moodayay iima shidnayn markaan duubayay. waxaan kaloo kusoo darayaa mushaaridii koobka ahayd iyo burkii. halka baaquli iskugu geenayaa baaquligan iskugu wada geenayaa xabada ukunta iyo koobka mushaarida iyo burka hal mar isku walaaqayaa ma fahanteen. si degdeg ah waan ku duubay fiidiyogan. blenderkan aan gelinayaa oo ama khalaadada mashiinka aniga gacanta kuma qasaayay. marka maasha allah markii mashiinkan oo laga soo shubo iyadoo indhaley kasoo baxaysa ayaa ku dhahay uma baahna maaragtaa sakin inay taalo xataa aniga markaas aan qasaan rabaa inaan horey markaas ka dubo hadda horeen ka dubi rabaa. maasha allah canjeelo kaala aragay kusoo baxaysa. canjeeladan fiiri maahan bur kaliyeed maahan waa raashin iyo bur iyo waxawaaye iyo maaragtaa xulbad. markaan xulbada iyo qamadiga iyo ku dareeyay kaamirada iga dansaneyd iga raalli ahaada laakiin idinkuba iska garta waa idin sheegaya afka idinkaga sheegaya. canjeelada waa tanaa maasha allah guduuday kusoo baxaysaa. marka walaaleyga qaaliga xoogaa anoo degdegsan baan duubay fiidiyogan oo ilmaha iga daahsanaa. marka maasha allah soo dhawaada canjeeladan canjeelo waxa waaye fiican oo protein leh dadka waaweyn iyo ilmaha u fiican especially ilmaha u fiican oo maasha allah marka laba nooc aan ka dhigaynaa. nooca kale tan sideeda lagu cunayaa oo qofkii raba shaaha ku darsanayaa. marka nooc kale waxaan u hagaajinaynaa oo jira maasha allah saas kusoo baxda fiiri guduud qurux ah inaba caadi maahan. tan sideeda lagu cunayaa oo macsar ama lagu cuno ama qofku wuxuu saa ku cunayo juice leh
laakiin ilmaha yararka waxaan u hagaajinayaa tan iyo ukuntaas. Ma fahanteen? waagii aan yareyn sidii naloogu hagaajin jiray yaa ilmihii u hagaajinayaa. Ani aad u jeclaa waagaa yaraa. Canjeelada ma aragtaa dabka markay saaran tahay oo daawaha dabka saaran yahay ayaa waxaan jeclaa in ukunta tan oo iskor lagu qaraaco in maaragtaa laygu dubo. Marka sidoo kale hadda carruurta ugu dubayaa. Ani weli waa jeclahay maasha Allah. Maaquulkan waxaan kusoo shubayaa 3 xabo ukunta iyo 2 qaado sokor ah. waa isku qaraacaya si fiican si isku dhex galaan. Si fiican markay isku dhex gasho ayaa waxaan sameynayaa birta dabka maba ka dejin birta dabka ii saaran tahay. Canjeelada oo aan rabo inaan ukunta ku dubo maaragtaa ma bislayn aad uma bislayn waa taas. waxaan ku darayaa in yaroo maaragtaa ii sheeg ukuntii waa kusoo shubay. haddana qaadada mid kale kis kale kusoo shubay. kaas xabad canjeelada waa dusha ka saaray oo soo ugu daboolay. saliid yar geesaha ka marinaya waa gadgadinaya diyaar wayaan ku dhahay canjeeladeena. marka canjeeladan haddaad jeceshahay karso haddaad jeclayna waa kaas. ani laakiin ilmahayga aad u jecel maadaama ilmaha subax aroortii aan la siin karin suugi waxaas is cuni karin ma barabaane ayaa maaragtaa aan tan u sameynayaa. maasha Allah aad ay uga helayaan way jecel yihiin. anigaaba jecel inta ilmaha la gaarin. marka aniga 6 morning waaye aroortii quraacda ahna waxaan jeclaa inaan maaragtaa aan canjeelo ku quraacdo. marka canjeeladana waa canjeelo nafaqaysan maasha Allah wax walba lagu daray oo nafaqo ah. marka maasha Allah kaale iska arag waaye. waxaan rajeynayaa inaad ka heli doontaan. haddaad ka heshay fiidiyowgan waxaan ii saartaa subscribe like ii saar. maasha Allah dhiirigelin ayay ii tahay. maasha Allah xabad kale waaye tanna oo canjeeladii ah. 2 xabo 3 xabo soo dubay xabad anaa la haray 2 kalena waa kuwaana 2 ilmood oo kala saaray. ilmi intaa tuu cuno koobkiisa caanaha cabo maasha Allah caanahan toonay leeyihiin ayagoo qandaca xabad toona maaragtaa ku dhex riday waa isku ruxay waa ku luxluxay kadibna waa ka shubay toonta uga miiray ma fahantay. caanihi kaliya uu shubay marka dee maasha Allah waa tana xulbadan maaragtaa iyadoo miraha maaragtaa aad bay gurigeyga u taalaa. waxa ahayn gurigeyga lagama waayo xulbad iyadoo shiidan iyadoo miro la hebo. canjeeladana aniga ilmaha xulbadan ugu daraa. marka adna waxaan rajeynayaa inaad maaragtaa ka heli doontid oo aad xulbadu waa daawo ilmahana aad bay kuula korinaysaa. igu soo ogaada ilmaha canjeelada ugu dara. marka walaaleyga qaaliga ani juuska xataa ilmaha waa ugu daraa. qaabka aan juuska ugu daro oo is ilmaha xataa dhadhamin oo dareemin oo sashirkeeda xataa aysan dhimin waa soo gelin doonaa insha Allah. intaan fiidiyowgeena intaas uu ku egyahay. fiidiyow lamida intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa fi khayr iyo barwaaqo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.